oo ugu adeeg si fiican waa la joog oo la jir oo u adeeg oo ka shaqeey danahooda iyo waxa ay doonayaan aan macsi Allah ahayn wixii macsi Allah sida inaad u soo eegisid sigaar ama qaad kama yeeraysid uga soo cudur daaro si xurmad leh iyo xusmad oo u sheeg inaad wax kasta diyaar u tahay inaad u qabato aan ka ahayn wixii ku caasin Allah ah وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لجوج ولجر أو هكذا والدك كور ما جعل يوم بك قربها الجوجة والدك خد يعني من الكودي وحال جاء بقى كود إن ينعرف النظر حريرين بلو شك ملا إن كوايهين عاصيين هل سواها على اللي عجبتي وحين الله نهاي أين إنه قلنا كليهم كأجلوان والدكين أدوم الله وإن لازمنا عجهوده وهلكاس جنبي وهلكاس راحتي رزقي يداري بالواقدة وهلكاس وديوي جنبه وهلكاس داريه جنبه الباب كجنبه وعدها والد تهوصله سدابة أنت يعني الباب كاس سدابة أبوك أبوك شيء كنبي الباب بديدي قفك أمضنا إنه كسر والدتي إنه كإذن سوى معه هدي أي جبرت هنا وها شرجئة إنه الله سعد من حق على يزدوها من دون أبد والدين لا أصاحب طاعة أو حفظ أو دريارة وإني وحشر أبحيث والد كيدنا إدمان قفك قربتك إلى والدك أو كيغمق عن شقاء ما وحكله هبه يؤوها الله كاستغفار سبق دنبيا أو قلي كبير يا والدك كفو أنت والدك وحا قفك كسا خير رب الله قفك مسلم كايدوني إنه بسق حق والدك وإنه سنتديران إيجا وأدويهي وإنه لجره أو لجره وإنه قاجة كفوديه قاوني أولا أرسله أو كرسه أو كلار في قسيم ونأسان أو أبوه أيه سسعا إشغل غالية كفر أحسن أو خدمان توده وإنه كؤدي أو وشي وناجه أو درجيه أو كسفل الرالين مضوه أو آد أبوه سلحته أو خدمان توده أو وحي دونيان أبوه سوقفته سجدك عن ضاح لهين wuxuu qofka ka helaya wanaajinta waalidka duco darajo dambi dhaaf naxariis Allah ciiso sharaf cimri darar caafimaad aydihiisa oo la asturo liidaan iyo aakhira ah cibaadada iyo daacadaha laga aqbalo tabci samaan daris fiicni qof kasta oo u baariya waalidkii tabciga darisnimo fiican buu leeyahay xaalka maanta dadka soo waa cagsi si ay ahayd abaarta toosan dhageysa qisadan waxaa jira wiil waraaho la yiraahdo ayaan leh wuxuu ahaa faajir caasi ah caaq aan waalidkiis cideen maalin baa waxa uu yimid aabihiis oo ka canaantay qaadka iyo qurun kale uu ku jiray markaasuu hadalkan ugu jawaabay fahayalkii xumaa uu ku yiri darteed wuxuu damcay aabihiin inuu canaanto ma garanaysaan waxa uu falay wiilkii wuxuu u gacan taagay aabihii oo dharbaaxa ugu jiiday markaasuu aabihii tagay isagoo dulman oo aaday masjidkii uu ku tukan jiray oo laba ragcadood tukaday oo yiri erayo lamid ah erayadan isagoo ku bilaabay alla amaan kuwaan oo kala ah wuxuu yiri ilaahu ahsaan badanow arhamur raahimuun lahubow adoonkaagii baan ahay abaalkuu ma gudin karo awoodana adiska leh abuurkaygii koowaad awalkiiyo bidaayada haddoon oday erala ahay ilaa uurkii hooyaday adduunyadii intaan jiray adigay gaarso ka jiray addoomana wax kama helin ixsaankaaga ma ahee arxan kalena sugin maaha aakhirana ka sii daran ilaahow axsaan badanow arxamu raaximin lahubow iminkaygii ayaan la ahaa argagaxa igu riday oo abaalkaygii inkaray afxumo awal baan ku qabay ayaantana adin buu iigu daray ilaahu adaaweyne iiga ah inankaa oo ha ku dhaco amar aabihii gacmihiisii uu alla bariga kor ugu taagay ma uusan soo dejin markii wiilkiisaasi jirkiisii nufsnaafoodeen wuxuuna ahaa naafo ilaa uu ka dhintay saddex duco lama soo celiyo waxaa ka mid ah duco waalid iyo daadka mawjud waa soo duxaan makuu duceeyaa duco waalid iyo daadku mawjud waa soo duxaan meesha ilaahay u dayay degdegaan haddii aad duco rabto walaalkay muslimka ahow walaashay muslimadda ah orod oo aad hooyada orod oo aad aabbaha u weydiisa duco dhageyso waxa uu alle ka yiri caasi waalidka والذي قال لوالديه
إنكما أتيتاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا أساطير الأولين. ومعناها ليها في إصابة كل هذا وارد كيس أفضل ليهم ما واحد يبهضان إلا soo saari doono mar kale iyadoo qaarumo hortay aniga tageen iyagoo la soo saarin halka iyagoo aabaha iyo hooyada ay ka tuugaan alla hiil oo hiifaan wiilkooda iyagoo leh balaayo kugu dhacday rumee xaqiiqii yabooha alla waarune waa sidaas markii ay yiraahdaan maandhow suko maandhow aad nafsi maandhow iska daa fasahaadka maandhow xoogso maandhow iska daa macsida maandhow iska daa qaadka maandhow heesaha baa saxbo kuma tarayaan dhageysigooda ee quraanka iyo wacdiga dhageysiga cilmiga waxtarka leh muxuu ugu jawaabaa shaqo isu maleeyay faraha iga qaada xor baan ahay waa uu ka jeesadaa waa uu dhibsadaa ma maqlo ma maamuuso ma tixgeliyo hadalkooda kama hara saaxiibada xun ma garanaysaa jazihiisa ma garanaysaa waxa walla ku abaalmarin doona kaasoo kale wuxuu yiri alla weyne isagoo ka waramaya ka oo kale iyo kuwa aynigiisa wuxuu yiri Allah azza wa jalla wa kuwa yani caasiyiinta aan baariga u ahayn waalidkood aan adeecin kuwa uu qowlka cadaabta kula waajibay umaro jin iyo inta leh oo hortood tagay xaqiiqdii waa iyaga abad toogayaasha dhageysa qisada ninkan dhibsaday aabihii wuxuu ahaa baari u asxaan fala oo xiriirsa oo u nugul oo u turid iyo naxariis badan waxaase ku dheeraaday aabihii oo ku adkaaday hawshii markaasuu dhibsaday aabihii muxuu falay inankaa ma garanaysaan waxa uu falay wuxuu saaray aabihii rasi oo u baxay baadiyaha markuu keenay meel cidla ah buu aabihii wuxuu yidhi aabbo xaggee baad ii wadaa wuxuu yidhi wiilkii aabbo waan ku dhibsaday waad iga hortimid wuxuu yidhi marka maxaa doonaysaa inaad fasho wuxuu yidhi wiilkiisi waxaan doonayaa inaan ku gowraco wuxuu yidhi aabihii maandhow maxaad leedahay wuxuu yidhi wiilkii waxaan doonayaa inaan ku gowraco kuma hayn kara aabbo wuxuu yidhi aabihii haddii aadan ka noqonayn go-aankaaga haddaba igu gowrac geedkaa weyn hoostii wuxuu yidhi inankiisii waayo wuxuu yidhi aabihii waayo waxaan ku gowracay aabbahay geedkan hoostii waxaadna la kulmi doontaa ilmahaaga mid kugu gowraca geedkan hoostii waa sidaase wuxuu yidhi alla weyne jalla wacalaa laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suu'an yujza bihi walaa yajid lahu min duuni illahi waliyan walaa nasiira oo macnaheedu yahay kii kastoo fala xumaan waa heli doonaa jazaheeda iyado waxaa sidoo kale la yidhaahdaa aljazaau min jinsi alcamal qof walba dembigu uu galabsado mid lamida looga gooyaa kanina waa ganacsade reer riyaada oo sidoo kale daaciye ah ila allah leh shirkado badan ay ka shaqeeyaan shaqaalo badan waxaa xanuunsaday hooyadii markaasay isbitaal gashay isaguna wuxuu la joogay hooyadii isbitaalka 2 asbuuc iyo ka badan maantana ilmihiisa kan xitaa gurguuradkaahay gurguuranaya inta u yimaado buu ka dhunkadaa isagoo sajiisan isla meeshii uu isagu ka dhunkan jiray hooyadii iyadoo iskuusan cidna ma barin ilaahayda ku ilhaamiyey ee walaalkay muslimka ahow walaashay muslimadda ahay u baari ahow waalidka baari u ahow aabbaha baari u ahow hooyada maqal iyaga oo maamuus